mar walba waxaan nahay cirgaba nabadha lagu wada joogo sababta aan u lahayna waxay tahay meesha beelaa wada dega daarood iyo isugu jira saaq inta kaliya lagu wada joogi karaa waa nabad laascaanood bay ka socotay magaalada tana la duqaynay maalinta Muuse bixitan duqaynay anagu waxaanu go'aaminay ismada 330kii guurtay halkan joogtay dhamaantood waxaanu qaadanay go'aan ah inaan sanaag xabad laga riyo hal ay dadka cirgaabooda degan anagu aanu ka mid nahay oo deegaanka yaala waxa inoo ballan nabad waxa inoo ballan wixii dhintay wixii nool inaynu u talino waxa inoo ballan in gaashaama ka yimaama gaashaama ka soo hadlaya ma khusayso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anaga go'aanka iyagu waa inta uu sheegay Garaad Cabdisalaam waxaan joognaa Laascaanood dadkan Soomaalida waxaan u sheegaynaa dadku arday miyir qabaan anagu bilow ilaa dhamaad jiida beelaha wada dega ilaa cirgaabo mar walba waxaan lahayn waa nabad ninka maanta yiraahda shar bay fidnay ka shaqeynaya tawabadaad moodo inaan dalka war badan ka hayn horena waad u ogeydeen arada wixii ka dhacay maalinta Laascaanood wixii ka dhacay la ogaa mar walba waxaan nahay cirgaba nabadha lagu wada joogo sababta aan u lahayna waxay tahay meesha beelaa wada dega daarood iyo isugu jira saaq inta kaliya lagu wada joogi karaa waa nabad haday qolo istiraado adaa haysanayo qolada kale meesha ka baxaysan waxba wax kama jiraan intaas aan u gararay hadeerna inta baanu leenahay waxaanu meesha ku baaqaynaa nabad waxa cidoo le marxaati ka tahay horeyso iyo dambayso nabad jabintu inay ka imanaysaa dhinaca beelaha isaaq haday musaabo kor tahay haday tiimaanti loo way tahay inkastoo tiimaanti loo aanu arkano ninka odaga ah oo hadda garaadku sheegay meesha yimi inuu fidnada isagu abuuray aniga waxa leeyahay leeyahay ninka wiilka dilay oo habarawal waa dhintay waa leeyahay yiri sarkaal baa si leeyahay leeyahay ilaahay baan ka baqayaa qaar ba markay hadlayaan sidaan islaam hayno hadla waxa leeyahay yiri ninka inanka dilay oo fidnada abuuray waa sarkaal habarawal oo laga tagay magaalada ninka waxa loo qorsheeyay inuu meesha xaalad ka abuuro oo dadka wada degan oo masaakiinta ay istilaan waa si warku nagu soo gaaray waa habarawal baan iga leeyahay yiri warkaan waan ka hayaa waa ka waaya waxaynu isla ognahay horeysiga dambayso xabadaan qolada isaaq ka ibari jiida inuu ka bariyay oo maayli maalin kasta oo wax dhacaan anagu waxaanu ilaahay lagu guuleeyay inaan dhinaciga xabadi ka iman aad waxa loo hadalhayaa maxaa qolada tani u hadli weeyay war maxaa loo hadalaa maalinta arinta la diyaariyo ba subaxdii waxa imanaysa xabad jabin habeenaan wada hadalay niman deegaanka yaalo oo kulli qoliyaha habar yoonis oo Saacid Yoonis iyo Muuse Ismaaciil iyo qoliya kale oo yana meelaha ka soo hadlayay oo maalintii wax dhaceen ahayd waxaan isla go'aansanay aan qoro waliba caawa hays xakamayso iyo aan bari waxba dhic salaada markii laga soo baxay in odaya meheradiisa furaraya la dilay halka dadku ha fahmeen in qoladaas cirka in cirka ku siilaale hadii ka dambeysay halka ay dhowr casho qaadatay labadii la jabiyay shalay wixii dhacay waa looga marka cid aad u raadin